rabnaa Soomaaliya in la isweydiiyo Soomaaliya halkay u socotay meel aan dooranay oo aan ognahay in danta ummadda Soomaalida ay ku jirto ayaan u soconaynaa meel qoorqabad ah oo naloo wado wadanaha caalamiga ka muuqdaan ayaan aadaynaa iyada oo maaragtay dadkii danaha ama adduunyadan maaragtay hadda ugu maaragtay mukhaafkoosna suuq ayaan ugu awoodda badnaa isku kaanya haystaan yaan annaguna is haysanaynaa weynaan ogeyn xaaladda Soomaaliya dalkan waxay soo martay xaaladda hadda maanta waxaan ku talagalnay 2 saacadood oo half an hour ay tahay khudbadaha dadka oo culus oo maaragtay runtii maaragtay aad bulshada dhexdeeda qiimaha kale sida maamul Sahra iyo Jenaraal Maxamed Khaalid oo kale inay maaragtay dhowr kelmadood dhahaan oo runtii dadda ah khibrad leh way araga Soomaaliya waxay soo martay waxaa halkan fadhiya dad professor ah oo almost PhD holders u badan marka waxaan u talagalay su'aashaas bilowgeedii iftitaaxiyadii waa maanta Afrikaan laakiin ayadoo inta ka culus oo more academic discussion ay imaan doontaa marka intaas ayaan rabay inaan maanta dhaho waxaan jeclaan lahaa sanayna waxaa laga hadlaa inaysan taaban qof ama hay'ad معينة لكن سي objective الله هذا ويراهو وحاجة سومالية أما أصحن أما أتوصل وما objective analysis أي نقطة less subjective analysis أي نقطة أساسا جعلنا هاي إن شاء الله تعالى وحنسليه أنا كلي إن المسؤول ويو ودي شيء جديد أنا ما أعرف هل كان ممكن كلي نسكلها دوت وحا إسكاله سؤالها جوابها دو إسكاله maaragtay dadka marsi sharafta ah